السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان وان إذن سلامي ومدى صوماليات ميل البضع عالم كجوكتان سوى البومقل كان إذن سوغاريو وولالكني مسعب محمد وإذن له الحمد لله على كل حال وحماد سكاله الله سبحانه وتعالى والله إنو سورة قليي إنو دمان تنبأ وذن نولانو إلا حلقان وحكالو مهاد سكاله والدينتي وقت إنو بحيي سيئنو وح أبرانو أنو عبادي سنو waxaa mahad iska leh oo aan la soo koobi karin Allah subhanahu wa ta'ala waa Allah inoogu deeqay jannaadka doomihiisa rumaysan maamuus iyo martaqad ahaan waa Allah ina soo soomsiiyay bishan barakeysan ee aadka uga qeyrka badan bilaha oo dhan oo ay ku jirto habeen lagu sheegay quraanka kariimka laylatul qadri khayrun min alf shahr habeenka oo micnihiisu yahay waxa uu ka qeyr badan yahay 1000 sano كن هبين أيو كقير بدنها واسده والله سبحانه وتعالى هذا الكيس كوير وحنو ما تجوجنا هبين كي قدام بشبركة سنة رمضان وحن لاحظ ليا دت كاني صومي دت كاني عبادتي دت كاني ما أنت فرح سن الصنك ودا ماضي لما هذا ليا دت كي ما أنت صنك ودا في دت كأو كلا وحن ديه كرا دت أي دافتي فرحت دت أي دافتي أبال مرين لقيبنا يو سنة ay dhaaftay abaalmarin sanad oo idin la qaybinayo maxay kula tahay abaalmarinta oo hadana Ilaahay subhanahu wa ta'ala adoonkiisa ku abaalmarinayo maxay kula tahay abaalmarinta waan jeclahay inaan fikirayso xilligan aad isleedahay tolow abaalmarinta gormaal la sii doonaa waxa lagu sii doonaa waad garan doontaa markii aad dhimato wax waliba aad sameeyso gacantaada midig ay kugu shubmayaan amal walbaad qabato maalinka waxaad u qabato Ilaahay dartiisa haday tahay waxa lagu shubayaa gacanta waxaad noqonaysaa qof ma sha Allah ah qof dadka oo dhan ay jecel yihiin wanaag uu ka buuxo waxaad noqonaysaa shakhsi dadka idil ay xiiseeyaan hadalkiisa waxaad noqonaysaa qof dhageysigiisa la jecel yahay waxaad tahay qof soo soomay bil barakeysan ee Ramadaan soo duceystay ducadiisa Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka aqbalay haday tahay mid Allah dartiis uu bariyay habeenka Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa uu leeyahay qofka asiga oo firaashkiisa jiifa deedna ka kaca markaana maradii uu watay dana iska dhiga iyadoo ay tahay waqti ay hurdadu aad u macaan tahay deedna wajiga soo maydha waysa qaata cadeysta marka kadib Ilaahay subhanahu wa ta'ala hor istaaga marka buu Ilaahay subhanahu wa ta'ala malaa'igtiisa la hadlaya waxa uu leeyahay malaa'igteedii bal marqaati ka noqda waan u danbi dhaafay adoonkayga bal ka waran إلهي سبحانه وتعالى وحقو مرقاتي كاغا دغيا ملائكتيسا يا كقير بدن يا كوناك بدن هبينا انتو سو كوبي كرنا maahan waxaan idin leeyahay waxaad soo soonteen bil barakeysan Ramadan كان maanta faraxsan waxa uu ku faraxsan yahay waxa uu soo soomay bil barakeysan Ramadan marka lagu leeyahay wax waliba bilowgooda waa uu adag yahay waxa ka dambeeya guul sidaas la mid ah waxaynu soo soonnay bil barakeysan Ramadan waxa ka dambeeyay maalin farxad badan oo ay ciidu ku salaysan tahay oo aan dhamaanteenba ku wada faraxsanahay ciida oo keena dhiban iyo keena aan dhibaneen buu maanta ku faraxsan yahay ciida Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa inoogu deeqay farxadda oo farxadda kaliya ee uu masaakiinku dhargo oo farxadda kaliya ee uu masaakiinku u baahdo sanadkii hal mar waxaan idin leeyahay maalinku ha idin wacnaado habeenku ha idin wacnaato ciidku ciida kullu caam wa antum biqayr kullu caam wa antum biqayr waxaan idin kaga tagayaa hal kelimada oo ah caawi qof waliba oo masaakiin ah waxaad dareemi doontaa farxad aysan nolosho idil aysan ku siin markaad caawiso qofka masaakiinka ah wassalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh